madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa la filayaa inuu safar rasmi ah ku tagi doono waddanka Djibouti halkaasi oo ay saacadihii ugu dambeeyay gaarayeen wasiirro hordhac ah una sii gogol xaadhaya wafdiga madaxweynaha iyadoo ay siyaasadda gees ku jahaynayso ayaa Djibouti iyo Ethiopia ay ku kala fogaadeen aragtida siyaasadda iyo diblomaasiyadda shalay ayuunbay ahayd markii uu safar ku yimi madaxweynaha waddanka Masar Cabdifataax al-Siisi tanina waa calaamad muujinaysa in Addis Ababa ay hoos u dhigtay ganacsiga iyo xiriirka Djibouti haddaba saameyn nooceeya ayuu ku yeelan doonaa safarka madaxweyne Cirro siyaasadda geeska maxaa Somaliland faa'iido ugu jirta maxayse ku waayi kartaa warbixinteennan ayaynu ku qodobaynaynaa tan iyo markii la doortay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa laba safar oo kaliya u baxay labadaasina waxa nasiib u yeeshay waddanka Imaaraadka Carabta madaxweynaha ayaa safarkiisa saddexaad la filayaa inuu ku jalbeeban doono waddanka Djibouti oo si weyn looga sugayay lana odarosayay inuu ku tagi doono safarkiisa koobaad wareediyo warbaahinta xogagal helayso ayaa sheegaya inuu halkaasi gaareen wasiirro hordhac u ah wafdiga madaxweynaha oo si gogol xaadhaya ujeedaha iyo qorshaha uu tagayo madaxweynuhu lama oga ilaa iyo haatan balse golaha wakiilada iyo guurtida oo isku lamaan oo khudbad u jeediyay maalmo ka hor ayuu madaxweynuhu u sheegay inuu labada waddan ee Ethiopia iyo Djibouti safar ku tagi doono inkasta oo aan la ogeyn markaasi kan uu horeysiin doono hase yeeshee diblomaasiyiinta Somaliland ayaa u jahaystay dhinaca Djibouti marka la eego dhinaca ujeedka safarkan ayaa xeeldheerayaasha siyaasadda geeska falaqaya markii ay diiradda saareen waxa ay ka soo dhex saareen in la adkeeyo xiriirka Djibouti iyo Hargeysa socdaalkan ayaan wax kale qotada ku haynin inta haatan la og yahay inkasta oo ay tahay tallaabo diblomaasiyadeed oo ay ka soo dhex bixi karaan qaar kale oo la falaqeeyo ka gadaal Djibouti waxa ay ka mid tahay wadamada dagaalka xooggan kula jira inay Somaliland aqoonsi hesho dhawaan tallaabooyinka ay qaadayna waxa ka mid ahaa inay midowga Afrika wax ka beddesho siyaasadda uu Somaliland ka aaminsan yahay iyadoo raad goobaysa ama raad baabi'inaysa warbixin hore midowga Afrika uga soo saaray Somaliland inay ahayd dal madax bannaan markii ay Soomaaliya ku biirtay dadaalada xooggan ee ay Djibouti ku jirto oo ah kuwa danaheeda ay ka dhex arkayso ayaan lagu dhaliili karin waqtigan xaadirka balse Somaliland waxa jira dana kuwaas lid ku ah oo ay eeganayso madaxweyne Cirro safarkiisa ayaa qotada ku haya kaliya in xiriirka labada waddan kor loo sii qaado kaasi oo aan wanaagsanayn labadii sanadood ee ugu dambeeyay safarkan ayaa xeeldheerayaashu odorosayaan inta ay og yihiin in wax faa'iido ah Somaliland ugu jirin marka laga reebo daris wanaagga iyo isku soo dhawaanshaha labada shacab ee Djibouti iyo Somaliland waxana ay ku waayi kartaa sida odorosayaashu ay intaasi ku darayaan xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay waddanka Ethiopia iyo Addis Ababa oo haatan doonaysay inay isugu soo lugudawato marsada berbera taasi oo ganacsigeeda oo dhan ay halkaasi kala soo degto maadaama oo Djibouti ay haatan xirguf siyaasadeed iyo xiisad diblomaasiyadeed u dhaxayso taasi oo sababta keentay madaxweynaha waddanka Masar inuu Ismaaciil Cumar Geelle soo casumo taasi oo maalinnimadii shalay ahayd uu halkaasi soo gaaray safka Soomaaliya Masar iyo Djibouti ayaa ah kuwa seefaha u lisanaya Somaliland oo aan marnaba siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaan u ogolayn horumar si weyn uga soo horjeeda aqoonsiga Somaliland ila odorosayo inuu imanayo sanadkan aynu ku guda jirno ma u baahan tahay barashada Qur'aanka Kariimka iyo culumtiisa Machadka Luqmaan Al-Hakim Islamic Online machadku maadooyinka uu bixiyo waxa ka mid ah barashada Qur'aanka iyo ahkaamtiisa barashada hingaada iyo qoraalka barashada ducooyinka barashada xadiista nabiga barashada luqadda carabiga barashada luqadda Soomaaliga haddaba si aad iska diiwaan geliso kala xiriir WhatsApp numberka shaashada kaaga muuqda